markii igu dambeysay Muuse Xirsi Faahiye halkan ayaan ku wada kulannay waxaan weydiiyay dhowr su'aalood oo ku saabsan dacwadii uu inta badan u soo goobjooga ka ahaa markii koowaad waxaan weydiiyay bal sida uu arko kulankii u dambeeyay ee maxkamadda uu ka qayb galay waxa uu muujiyay rajo wanaagsan waxaana uu mahadnaqay wasiirka arrimaha dibadda oo isagu goobjoog ahaan maxkamadda doortay in uu kayskaasi ka qayb qaato sidoo kale waxa uu mahadnaqay kooxda Soomaalida ee mar walba iyagu ku hawlan in ay dacwadan sii wadaan waxaan weydiiyay in uu kelmadiisa noo duubo hayeeshee Muuse Xirsi Faahiye arrinkaasi uu ka gaabsaday waxana uu yiri waxaan door bidayaa maalin kale inaan hadlo maalintaas oo uu tilmaamayay inay noqon doonto mid Soomaalida oo dhan farax gelinaysa waxa uu yiri maalin aan ishubo ayaan hadli doonaa hayeeshee maalinta waxa ka soo horeeyay malakumowdka oo naftii u gudbiyay rabbigeedii ninkan wuxuu aanay aad u calooladay oo problemkiisa sempre inuu qarsado jecel marka wuxuu igu yiri telefoonkiisa waan waayay waan shakiyay markaas Muuse yiri waan aad ban xanuunsanahay inay xaaladiisa caadi ahayn telefoonkii baan ku celiyay telefoonkiisa switch off uu dansan yahay okay sorry dacwadda dhulkii hore safaaradii Soomaalida Muuse waxa uu ahaa ninkii bilaabay maxaa taa ka ogtahay oo nooga sheegi kartaa kayskaas runtii ninka bilaabay hortore waa asaga ninka runta bilaabay ilaa dhamaadkeedana u taagna asaga uu ahaa maadaama nin mutacallim ah oo waxa la sameeyo iyo habku siduu yahay garanaya uu ahaa ninkaani wuxuu ka war helay in safaaradda si hoose loo galahayo markaas waa markuu iska taagay uu diiday dhaqaale badan baana loo ballan qaaday runtii waanu diiday nin xirfadda iyo wax kala garanayana uu ahaa dacwada suu u dhigayna waxa cajiib ah dacwada sida uu u dhigay oo uu ula kaashaday misnaanka la yiraahdo إبراهيم محمد إبراهيم خير الله كسي أسجنا دعوة لدافع وعي نقطة دعوة دي يصير أصاب بندقي وحلا دافع وعي نقطة ومركب الجوجل يستي لكن المهم ككيس كوحاوي كيس كسيدي لو أبابولي ومحكمة اللوجي وحوها نينك موسى نينك جانج محكمة مركي تجا محكمة وحاوي شاجن أيجا دولة الصومالي أنا لا شرعيا الدولة الصومالي أم بكدودي كرتا قف كلو شخصيا كم دودي كرا لكن أيجا محكمة وحاوي شاجن أو محكمة أي شيء إن أي مثل عيان تدوينها صوماليا أيجا الصومالي ناشنالز أيهن دولة ما دام أي تشرين أيجا مركا أي كو قصبتي إن هنتدان أي أوقفتان إلى دولة أي معركتي دولة صومالي كلا سميه دولة محكمتنا وكياشة إلا مركي السجع مركي وقت حاضر كان 94 دول كليبنا 95 كي
dowladda Soomaaliyeed waxaa lagu mathali karaa nin asagoo caadi normal ah mar uu waashay qof business ah mis wax sameysanayo mar haduu waasho marka mas'uuliyadda dhanba marka ma qaadi karo qofka wax uu saxiix karo ma jirto wuxuu iibin karo ma jirto sharciga waxa weeyaa mar qof waxaas haday ku dhacaan qof qaraabadiisa ah mis qof asagu soo dhawaa maxkamad taga oo maxkamad baa qof kala mas'uul oo dhigta si waxyaabihiisa ay u socdaan dowladda Soomaaliya anfooyna tele markay markay burburtay qof mas'uul ah oo idin mathalay ma la hagaajin UN ma ay hagaajin adduunweynaha ma hagaajin marka qof mathalay ma ay jirin marka wax ay saxiix karto oo ay iibin karto oo ay sameyn karto waqtigaas ma jirin waa maxkamadna waana u sheegan ayaga inta iyada ah laakiin hantidii ma la dhaafi karin in la qabta baa ahayd marka waxay yiraahdeen annaga xoolaha waxaan qabanayna oo dawladda iyo dadweynaha maalinta dawladda ay maado dawladda baa waxa kiiskii wadanaysa waayo qorna dacwadii markii ay geynay 95 sidii baa ku qornay dibka taagan wuxuu ahaa nimankaani labadan nin shaqaale ay ahaayeen gurigii waata lagu korgatay markii gurigii lagu korgatana oo baraarugeenna wixii ugu soo horeeyay oo u yimideen aniga ayaa kamid ahaa markii labaadna Awil Xuseen Cali Ducaale ayaa namartuu nagu noqday oo yiraahdeen ninkii sidaas buu sameeyay gurigii khatar buu ku jira annagii shaqo ma haysano sidaas ayay noogu yimaadeen nimankii dagaalka galay afartaasaan ku ahayn waad aragteen u malaynayaa liiska ilaahayna waa nagu guuleeyay inaan maaragtay isuuroobi weydo in la qaato dhulkii marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad qoraayna u ah aad u fiican oo xagga qoraaga ah nin aad u macnale ah marka ninkaasi nin Soomaaliyeed oo sharaf leh nala ah aniga agteyda iyo ninkii Soomaaliyeed yaqiinba nin aad u xishoodo ahaa aad u urursan maxaad ka xasuusataa intii aad wada joogteen iyo intii uu ku sheegayba Muuse Xirsi taariikhdiisii markii ugu horeysay wuxuu iga sheekeeyay inuu ka bilaabay shaqooyinkiisii ugu horeeyay ee Mareerey mashruucii sonkorta oo malaha ka noqday managerka ninka ku xiga asagoo markaa shaqada 1982 ayuu wuxuu igu yiri waxa uu wareegay malaha wasaaradda meesha caafimaadka asbiima la dhihi jiray daawooyinka muddo halkaasna uu ka shaqeynayay kadib markaa scholarship-kan oo aaday jaamacadda oo London oo aaday marka halkaas waxbarashadiisii uu ku soo dhameystay masterska 4 years 1988 ayuu markaa oo dhameystay jaamacadda soo dhameystay intii ka dambeysayna dawladda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda uu shaqeynayay mar wuxuu ka ahaa qusul buu ka ahaa New York markii dawladda Siyaad Barre ay dhicid ku dhowdahay oo ay 1990 ayaa bedel lagu keenay halkan safaaradda lagu keenay from New York sidiiba markaa oo halkan ku joogay Cali Mahdi dawladda yareeday Cali Mahdi oo dhisay baa haddana safiir u magacawday halkan dawaati markiiba dhacday dawladda tabarisay may ahayn sidiiba markaa anagu Nairobi meel booga maalan bixino soo wada joognay marka waxay from that time wax shaqo oo sida weyn oo Nairobi ka qabtay ma jirin 1995 waa kan dhibaato ka dhacday in badan bukiiska markaa socday oo aan wadanka shaqaba damiin buu ku joogay loo ogoleyn inuu wax shaqo ka qabto dalkiina uu ka bixi karin markii kiisku dhamaaday 1997 buu waxyaro contract yar United Nations UNDP Department of Somalia oo shaqo yar ka qabtay 2 sanadood meelahaas taasoo markaa wax shaqo aba from that time oo dalka Soomaaliya uu baabay ilaa oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf 2 sanadood UNDP uu shaqeynayay wax shaqo ka qabtay dalka ninkan maadaama uu xildhibaan dawladda ku meel gaarka noqday
waqti badanna uu diblomaasiyada ka shaqaynayay waxaan ka warqabaa kulleyba in dad badan oo asxaabihi ay yiraahdeen warniyahow adiga meel shaqadaanaad aad ugu sii wanaagsanaan lahayd dad badan baa hoos ula hadlay hawl station adag oo Djibouti ana waa la geeyay runtii oo loo baahnaa maaragtay in dib loo dhiso dib u dhiska Soomaaliya oo dhan xubnaha Soomaaliya in laga dib dhiso loo baahan yahay ka mid tahay maaragtay safaaradaha diblomaasiyadda yani ma aha xildhibaanku keligii inuu wax samayn karo marka ninkan khibrad zaid ah la bidayay waxaan ka warqabaa in madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu aad iyo aad ugu dhiirigeliyay inuu ku noqdo diblomaasiyaddii gaar ahaan uu stationkaas Djibouti safaaradahaas Djibouti inuu ka qabto oo marka khibrad dheeriyaha la bidayay runtiina way ahayd xoogaa maaragtay meel walbana way dhib badan tahay markaan oo kale meel kasta oo laga bilaabayo zero wax dhib badan weeye Djibouti hanti badan oo Soomaaliyeed baa tiilo aan hubo inuu ka soo dhalaali lahaa iyadana hanti tirada ka badan oo Soomaalidu ku leedahay jirto kala dhuntay oo kala firiqday marka waxa la bidayay Muuse inuu maaragtay arrimahaas oo dhan isu keeni karo oo dhanka diblomaasiyadda dib u dhiska safaaradda hantida Soomaalida nin aad iyo aad wax loo bidahayo Allah naxariistiisa iyo Jambo bwana habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa Kenya yetu hakuna matata gurigan aan hor joogno waxa degan marwada Muuse Xirsi Faahiye uu ka geeriyooday oo lagu magacaabo Seynab Cali Cusmaan Seynab Cali Cusmaan waxay ka mid ahayd dadyowgii loo xidhay kayskii dhulkii hore ee safaaradii Soomaalida ee ku yaala dalkani Kenya in muddo aan xabsiga ayay ku jirtay xitaa waxa yaab leh Seynab waqtiga ay xabsiga ku jirtay iyadoo uur leh ayaa la dhigay waa la xidhay marka aniga iyo isaga iyo gowr walaasha aan qaraabanaha guriga gula noolay wax family members ka aan ahayn waxaan ahayn ilmaha yar iyo gabadha walaashay gabar yar dhashay adug shan qof baan ahayn intii Faahiye families ahayd oo xabsiga gashay gabadhii marka iyo waa la soo daayay dadkii la soo daadayo la iska soo daadayay markii dambe ayay ka mid noqotay aniga waxa meesha ku harnay iyo محمد عمر جانجي iyo marxuunka iyo ninkii loo jiray Mansour ayaan magac kale ma si aqaan oo cook ahaan jiray meesha cook aha intiiba marka aan Spring Valley 7 casho ayaan ku xirnay oo maxay stationka police stationka Spring Valley markii dambe hadana girgiri baa naloo bedelay 10 casho meelaha waan ku jirnay kadib baa marka naloo geeyay maxkamadda noo dirtay prison ka aniga Langata waxa la geeyay Langata woman prison oo aan ku xidhnaa 4 bilood iyo 18 casho oo la soo dameentay markii dambe baa la igu soo daayay asaguna 4 bilood iyo 9 casho xidhnaa maalin walba every 1 week or 2 week na waxa la keenay maxkamadda أنا مركب حكوات أنا كأنه وحكوني ما دعيني وحن بانونا العلني ونمشي بالو علني هذا أنا علني أنا ومركب المها second born كأيان على شو كسيدي أنا وسديت بلاد حمل أو دليل بكله أيام إيش اللي يجلسوا صار. On January 1995, my father and I were taken into custody at Spring Valley Police Station for a maximum of 24 hours because of some problem with the Somali embassy. I was 1 year old and I could not remember anything, but then my parents came and told me the story. From that time, my father was a patriotic man and he was always dedicated to work for his country and his people.
Since then, he was always busy with the Somali government. Wallahi ninkaas waxaa weeyaan waa one of the very few maxaa ahayd the patriotic Somalis. Dhaqankii waa nin wadani ah oo wadankiisa jecel oo maaragtay he sacrificed his life, you know, his freedom for the sake of the Somali people. dadka Soomaali awgeed ma waa la xiray ninkan asaga macal xaaskiisa macal caruurtiisa waa la xiray dhulkan hadda la soo qabtay oo weli hadda dooda ay ku socoto asaga iyo waxaa soo qabtay ninkii la yiraahdo Maxamed Cumar Aadan iyo wakiilkii asagana aad u shaqeeyo shaqo fiican qabtay hadda jaaj ah oo nin la yiraahdo Maxamed Ibrahim saddexdaas qof horta dhulka hadda loo hayaa inkastoo asaga dhibaatooyin badan ay arintaasi u keentay oo 6 bilood oo xabisa iyo harassment joogta iyo 3 sano oo maxkamad aadid ah uu inta ku jiray intaas uu ugu dhabar adeegay laakiin maanta guul waxa wuxuu ka shaqeeyay inuu soo gaarsiiyay Soomaali kasi aan baqaadi karta halkaas waxaan u maleynayaa markii hore aan idin sheegay inaan gaarnay markii aysan wiilashii dhaqaalana haysan xaasasna leeyihiin inaanu taksiyaal ka dhigno baabuurtoodii taas hore aan kugu sheegay naf halkaas aan ka doonay aniga Ducaale inaan baabuurtii taksi uga dhigno oo maartay si adduun la isu soo gaaro ayaa naf ka doonay oo ma xataa Ducaale ninka la yiraahdo Faahiye khayr Allah siiye nin aad u fikir badan buu ahaa xaaskiisa intuu raray buu geeyay Kijado way ka jabnayd Nairobi nin aqli badan oo xisaab badan oo aad iyo aad u aqli badan buu ahaa Ilaahay jannada ka waraabiye maqal fiican laho talada haddaad isugu timaadaan aadnan mar la isla gafaynin صدح 20 فبراير موسى حرسي فاهية waxa uu ka ballansanaa maxkamadda sare sidoo uu noqdo goob jooge sida ay noo sheegeen qareenadii Soomaalida uga doodaysay maxkamadda sare waxa uu ahaa witnesska ama goob joogaha koobaad ee u doodi lahaa Soomaalida ha yeeshee maxaa dhacay inta kadib Allah u naxariistay uu geeriyooday Muuse Xirsi Faahiye maalintii aan maqalnay ninkii muxuu ahaa Allah u naxariistay Muuse Xirsi Faahiye intuu dhintay kiiskina waa January waa kiiskina 23 Febraayo waa buu ahaa maxkamadii baan u sii gudo maxkamad baan waraan u qornay aan u sheegnay ninkii baa naga dhintay oo first plaintiff ahaa oona prime witness noo ahaa laakiin ka hor maalintii aan November waxa noo waday oo shahaadadii waday oo ka dhamaysan ninkii Maxamed Aadsan qonsulka taala 23 maxkamadii baan tagnay maxkamadii baan u sheegnay ninkii naga dhintay oo nin muhiim noo ahaa laakiin on diyaar oo nahay shahaadadii muxuu ahaa Aadsan inaan dhamayno laakiin kiiski inaan reorganization aan ku soo sameeyno leenankaas institutional memory kiiska dhan asaga noo haay oo kiiska shaqo badan buu ka qabtay oo koodi asaga ku bilaabay oo prime witness noo ahaa marka reorganization baan u baahnay laakiin waxaan Maxamed konsulagi shahaadadiisa baan ka dhamaysanay maalintii muxuu ahaa 13 iyo 23 iyo 24 Febraayo kiiska dhimashadiisa wax waa nooga gaarsiisay muxuu ahaa ileen waa prime witness ka buu ahaa ninka kiiska bilaabay documenti fara badan oo ninkaas oo qoray baa jirtay oo maxkamadda aan doonaynay evidence ahaan inaan u geeyno waliba documentiga ku saabsan dhulka iibintiisa markii ay socotay wuxuu ka qabtay shakhsiyan waraaqa dawladda Kenya oo qoray baa jirta ra'iiska uu qoray waraaq uu qoray muxuu ahaa press ka baa jirtay waraaq general public iyo bank all banks oo qoray oo deegaan ahaan warning ah oo dhulka dawladda Soomaaliya baa askale dawladda ma jirto qof ma iibsan karo bangina lacag kuma dhiibi karo ma aragtay qof iibsanayo bangi lacag inuu siinin waraaqa noocaas ah iyo waraaqa amba wuxuu ahaa charge affairs Mareykanka uu qoray oo arrimihii uu sheegay mar documentiga sharciga Kenya waxa weeyaan ninkii wuxuu qoray asaga baa ma aragtay evidence ahaan maxkamad u geyn kara
kulankii dambeeyay aad ku tagteen maxkamadda sare waa markii ugu horeysay Muuse Xirsi Faahiye uu ka maqan yahay dacwadaas sideed idinku dareenteen in Muuse uu meesha ka maqan yahay dhinaca kale marka la eego Suleymaan Raxmatullah Umar iyo kooxdiisu sidee u arkayeen inuu goobta isaguna ka maqan yahay Muuse Xirsi Faahiye dareen nooceeya ayaa maxkamadda haray February markii hadda maxkamadda dib loo furay oo aan meeshaasna ka sheegnay ninkaasi geeridiisa qolada mudiciga nagu ihina aad iyo aad bay ugu faraxsanaayeen runtii maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin nin adag inuu meesha ka baxay marka aad iyo aad bay xoogaa u reereynayeen waxaan rajaynaynaa inaanay sidaas noqon meeshii uu wax soo gaarsiiyay ay guul ku gaarto oo aanu wuxuu nooga tagay annagu waa xafidna runtii wax la bedeli kara ma ahayno asagu hadduu sheegayo uu u taagan yahay wax kale ahaan lahayd laakiin annagu horey noo qaybsiiyey annaguna insha Allah sidii uu ugu talagalaan u wadi doonaa ma sha Allah waxay isu maleeyeen kiiskan dhan in uu ma aragtay Muuse kali oo fahansanaa oo qof kale oo waxba ka aqaan laakiin markii evidence-gii muxuu ahaa shahaadadii wasiirka iyo shahaadadii Atson markaan dhamaynay oo si ayagana su'aaladooda cross examination ay sameeyeen wixii oo dhanba in laga burburiyay oo ma aragtay ilaan ayaga waxay ku doodayaan waxa wax la yiraahdo sharciga Kenya innocent purchaser for value without notice waxa weeyaan aniga meesha iyada waan iibsaday lacagna waan ka dhiibshay fraud iyo ninkan awood inuu lahaa in kala ma ka warhaynin weeyaan marka innocent purchaser for value waxa maxkamaddu ku cadeynay Atson shahaadadiisi in uu yaqaanay dawladda Soomaaliya inay jirin oona weliba active role uu galay ninka Raxmatullah ninka muxuu ahaa the former ambassador oo dawlad la'aan ah oo lacag la'aan ay haysay dokumentigan waa lahaa in lacag la'aan ay haysay ninka idaha uu dhibaataysanaa marka hunguri buu geliyay meesha iga buu yiri dawladna inay jirin uu yaqaan marka fraudigi asaga aaba oo shahaadadaas aan cadeynay ma aragtay maxkamaddu inuu ogaa wixii dhanba asaga aaba oo aha marka waxay markii arkeen markii evidence kadib hata waxa proposal hata ay soo jeediyeen bal wada hadal aan bilaabno anaga lacag nin Soomaali lacag baa naga qaatay wada hadal oo maxkamadda aan ku jirin aan bilaabno baa nagu yiraahdo anaga waxaan ku yirnay anaga hadda kiiskayna meeshu gaaray wax wada hadal ah aan ma diidani laakiin horta soo qora waxaad sheeganaysaan laakiin horta dhulka asaga ah inuu kiisi ahantaas ka baxaan wixii ninkan uu dhiibinin Soomaaliya baa ka qaatay 15 milyan laga qaatay 15 milyan loo soo celinaa intaas baan isku haysanaa mooyaane dhulka horta wax la isku haysan kara ma aha baan intaas baan orally ugu sheegay waraaqna isoo qora baan kuli wax idinka ma aragtay dhinacayna proposalka waxaad haysaan laakiin proposalkiini waa inuu dhulka in habba soo gali kartiin baan ku leeyahay kaas wax la isku haysan ma meeqa lacag ali celinaya oo inuu ku ekaado proposalka hadii wali celinayo haday jirto that is the only thing we can even think about but as it is anaga kiiskan waan ku faraxsanahay si fiican buu socdaa insha Allah اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه dhimashadiisii wallaahi waan ka warqabay inuu muddo jirnaa oo mar waxa lagu qalay Djibouti baa lagu qalay operation baa laga sameeyay waxa laga saaray bahashan la yiraahdo bayl xameetida marka oo iska bogsaday markaas oo muddo malaha hal sano ku dhow uu caadi buu ku soo noqday markii dambe uu bahadana caafimaadkiisa hoos u dhacay oo isa soo tiri waayay marka wuxuu noo yimi halkan Djibouti ka yimi isagoo xanuunsan bishii 11aad ayuu noo yimi shanteedii isbitaal baanu dhignay Embishaa
muddo ku jiray hal week ah marka waxay ku caafimaadkiisa markii dambe waxay yiraahdeen waa caadi oo uu fiican yahay oo problem bay ku samaysay beerkii bahashi muddo ku taalay intii oo waxay ay iyadoo jiran oo is ogeyn iska socday markaas infection bay ku reebtay beerkii marka dhibaato dhaawac u geysatay marka wuxuu dhakhtarku wuxuu ku yiri caadi way ku soo noqonaysaa xaaladaadu halkan uu joogay muddo nala joogay 2 bilood nala joogay wuxuu naga tagay December 2deedii oo uu Djibouti ku noqday meeshii uu shaqada ka hayay marka 20 maalmood markii ka soo wareegtay oo aan sidan caafimaad ugu ogeyn isagoo xaaladiisii normal ku soo noqotay in baan maalin telefoon u diray markaas uu yiri aad baan xanuunsanayaa the last voice oo igu dambeysay wuxuu markaa aad baan xanuunsanayaa Saynabe telefoonka iska dhig berrito tomorrow ayaa laga yaabaa inaan try gareeyo xafiiska kala soo hadlo marka soo habeenkii uu ka sii daray markuu ka sii daray wixii habeenkii baa isbitaal u qaaday isbitaalka markay u qaadeen bigu ayuu wuxuu yiri after 2 days ayaan u remember magacaygu waa Ibrahim Musa Hersi Faahiye abaygu wuxuu aqrinaa Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. And I will appeal to the Somalian government to help us in our education and in our life because my bigger brother he's not working and he's a student and he cannot work since he's studying and I will appeal to the government to help us in the school fees and the rent and in our life. Sheikh Sharif madaxweynuhu halkaan iimaanayay maanta uu transit kama ku jiray markii January I think it's like January inay ahayd oo markaas waa is aragnay wuxuu yiri anaga ilmahan bal kula maarin doona noloshooda laakiin ilaa hadda wax oo inaan marba anigu raadiyay wasiirkii meel ku soo degay iyo madaxweyne inuu on daba cararmooy wax isweydiiyay dhimashadiisa ilaa hadda oo maxay tahay aan arkay ma jirto dee waxaan sugayaa nin taariikh Soomaali kula buu ahaa oo maxay tahay wadaninimadiisu aad u sarreeyay oo malaynay inaad taariikhdiisa la socoto waxa la markuu dhintay family-giisii waa la isweydiin doonaa oo waxa la oran doonaa waxa ku dambeeyay xataa tacsiba xataa oo idaacad inaan ka maqlo tacsidiisi mooyay wax oo face to face even safaaradan halkan ku taala iyo danjirahan waxaan isla ugu iman doonaa ilaa hadda wax yimid malaha I don't know de malaha systemkooda oo ay ku shaqeeyaan ba qofkooda shaqaalaha dhinta malaha sharci qoran oo waxaan bad jirin baan u maleynayaa ay dib loogu eego xaq ama xuquuqdiisa noqoto ama I don't know gurigu hadda wax dhamaaday buu noola eg yahay kiiskii ugu dambeeyay hadda wiigi ugu markii dhaweed oo shirka yimid ninka lawyerka abalkayga judge-ka wuxuu noo yiri guriga Republika Soomaaliya iskale marka haddii Republika Soomaaliya hadda nin gadan karo shakhsiye ma jiro marka goolkii waa la gaaray laakiin subaxa lagu kala baxayo asagoo nool inuu joogo aad bay u fiicneed adduunyaa u diiday
qodobadii qaadi sida u dhacay horta annaga ku guuleysanay muxuu ahaa dhulkii asaga ahaa qaadiga wuu nala ogolaaday iibkii inuu baadil ahaa iibkii la iibshay la sheegay ilaan dhulkii kelima la iibinay title documentigi waraaqdii lahaashada waxaa la siiyay ninkii muxuu ahaa la yiraahdo raxmatullah Umar annagana codsiga codsiyaal fara badan baan codsanay codsiga ugu muhiimsanaa in waraaqdii ninkii la siiyay in baadil laga dhigo oo dhulkii Soomaali lagu soo cesho oo Soomaali waraaqdii lahaashada la siiyo antideeni Soomaaliyeed oo aynu lahayn xaq u lahayn laguna iibsaday waxa ku dagaalamay oo markaa ka dhiidiyay usulkii markaa joogay iyo usul ku-xigeenkii Maxamed Cumar Gaange iyo Muuse Xirsi Faahiye iyo ani oo xaaskiisiya waxaan idiin sheegayaa walaal dhibaatadii halkan ka dhacday sida ay noo taabatay waxa lagu xidhay ninkaygii anigoo uur lahoo 7 bilooda oo gabadhaan uurkeeda leh wax Muuse waxa kale oo lagu xidhay ninkaanoo Abshir Muuse ah oo isagoo 1 sano iyo 1 bilood jiray xabsiga la geeyay laakiin wixii ilaahay qori cidna baajin mayso geeridu waa xanuun walba u dhimanayaa waxaan idiin sheegayaa laakiin walaal qofku wuu dhintaa laakiin taariikhdu ma dhimato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa madaxa sharafta leh diblomaasiyiinta madaxweynayaasha marwooyinka dhalinyarada wariyaasha ka soo qayb galay maanta oo ah maalin aad iyo aad qof kasta Soomaali ah taariikh u geli doonto maalin muhiim ah saa ogtihiin bishii 7 sanadkan bishii December 2010 waxay noo suurtooday mahad Ilaahay ka sokow in goobtii aan ku lahayn halkaan oo hadda idinka aad joogtaan inaan soo ceshano oo aan helno mahadaas waxaa iskale taariikhda sidaad u ogtihiin saa u dhacday Ilaahay ka sokow dad fara badan oo ay ka mid yihiin Ilaahay ha u naxariistee safiirkii noo joogay Jabuuti Muuse Xirsi Faahiye iyo Maxamed Gaange iyo dad fara badan oo ganacsato Soomaaliyeed iyo Soomaali fara badan oo halkaan Nairobi deganaa isku tagay lacag arooriyey abukaataar qabtay maxkamadii furay ayagan mahad gaar ah ayay leeyihiin waxaa kaloo mahad leh dadka Maxamed Ibrahim Ahmed Isaaq iyo abukaatayaasha iyagana sidii mataqaanaa volunteerka ah arrintan u galay xoogga saaray mataqaan nagala shaqeeyey arrintana bilaabay iyagana aad bay u mahadsan yihiin xafladda way noo socon doontaa waxa weeye waxaan rabaa haddeertaan inaan hoos u degano inaan calankii laga riday 1994 dhulka lagu riday inaan ka soo qaadno kadib hadda annagoo wada joogno calankii aan saama dulayna
وسلانكي ساري وديغي سي دخانكينا وسايدي كتنا وسايدي كتنا أي سانكي تاريخنا أي سايدي تاريخنا سبحان الصحوية سبحان الصحوية سبحان الصحوية سبحان الصحوية